Honorable President of the Assembly, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a great honor. Madaxweynaha Golaha Loo dhanyahay martida sharafta leh Marwooyin iyo Mudanayaal waxaa sharaf iyo nasiib ah inaan hadal jeedintan ka sameeyo golahan maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii 75aad ee midnimadeena nabadda horumarka iyo barwaaqada iyadoo ay muhiim inoo tahay inaan mar kale ballan qaadno sida ay nooga go'an tahay ku dhaqanka xeerka qaramada midoobay innaga oo wadar ogol ballaaran ku gaarayna iskaashi midaysan oo aan ka yeelano horumarka waara ee caalamiga ah ma jiraan wax ka muhiimsan wadar ogol iskaashi iyo ficilo hiigsi leh oo isku mid ah inta lagu guda jira caqabadaha siyaasadeed bulsho iyo dhaqaale ee dunida ka jira ee horseeday cudurka safmarka ah ee corona. Where the world is challenged politically, socially and economically by the COVID-19 health pandemic. In assessing the way forward to achieving the agreed sustainable development goals by 2030 in the midst of the global COVID-19 pandemic. Si aan u qiimayno tallaabooyinka aan horay u qaadayno ee ku wajahan gaarista hadafyada horumarka waara ee higsiga 2030ka ee inta lagu guda jiro safmarka corona waa inaan dib u qiimeyn ku sameynaa mustaqbalka aan dhammaanteen wada doonayno iyo nooca qaramada midoobayda aan rabno in aan helno. Corona waxa uu ahaa cashar arxam daran iyo dhawaqii ugu dheeraa ee hurdada ka kiciyay baahida loo qabo iskaashiga caalamiga ah wax wada qabsi mug leh iyo go'aan wadareedyo looga hortegayo cudurkan. Koronaha ma garanayo xuduud jinsiyad rag iyo dumar sida dadalku u kala dhaqaale badan yihiin ama dadka dhammaanteen waxaan nahay dhibanayaal sidaas darteed waa inaan helnaa xal wada jir ah oo bani aadamka ka badbaadiya cudurkan. Therefore, a unifying solution must be found to protect every human being from it. In Somalia, our government and people have worked closely together to mitigate the worst effects of the COVID-19 pandemic. Like most governments across the world, we prioritize the health of our citizens and did as much as possible to save lives. Somalia dawladdeena iyo dadkeena waxa ay u wada shaqeeyeen si dhow oo ah sidii ay uga hortagi lahaayeen saameynta ugu xun ee cudurka koronaha sida dawladaha kale ee caalamka waxaan hortiminta siinay caafimaadka muwaadiniinteena waxaana intii karaankeenna ah badbaadinay nafta dadka annaga oo si joogto ah u bixinayna adeegyo daaweyn ah iyo wacyigelin caafimaad. Dawladdeenu waxa ay samaysay wax kasta oo bulshada lagu badbaadinayo dadka uu ku dhacay cudurka corona oo sare u kacay xilligii uu bilowga ahaa ayaa aad hoos ugu dhacay kadib tallaabooyinkii degdega ahaa ee dawladdu qaaday. Mar kale waxaan ku celinayaa in jawaabaha guuleystay aysan suurtagal ahaan lahayn iyada oo aysan jirin iskaashi u dhaxeeya dawladdeena shacabkeena iyo bulshada caalamka. Waxaan rabaa inaan bogaadiyo dhammaanba shaqaalaheena caafimaadka ee geesiyaasha ah kuwaasi oo naftooda halis u geliyay si ay kuwa kale u badbaadiyaan. Waxaan aqoonsanahay samarka iyo waxgalnimada ganacsiyada gaarka loo leeyahay kuwaasi oo si dhow la shaqeeya dawladda si dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalka uu u noqdo mid shaqeeya iyaga oo adeegyo muhiim ah inoo fidiyay dadka Soomaaliyeed xilligii adkaa ee la soo maray. hase yeeshee guulaha aan ka gaarnay dadaaladeenna wada jirka ah ee Soomaaliya macnaheedu ma ahan inaysan waxna soo gaarin sida ka muuqata tirakoobyada rasmiga ah wax ka badan 3,000 oo qof oo Soomaali ah ayuu cudurkan ku dhacay ilaa 100 qofna cudurkan waa ay u dhinteen kuwa kale oo badan oo laga helay xanuunka ayaa wajahay xanuun iyo dhibaatooyin kale oo koronuhu watay kuwaas oo weli u nugul cudurka marka loo eego adeegyada caafimaad ee tabarta badan aan lahayn ee Soomaaliya. And others still remain vulnerable given the weakness of Somalia's overstretched health system and infrastructure. Given the grave health challenges posed to the world, in particular the most vulnerable nations like Somalia, I feel confident that with a greater public health collaboration, information sharing, and equitable distribution of the potential COVID-19 health treatments currently in development, we can permanently reverse the deadly impact of the virus for every human being
on the planet. marka laga eego caqabadaha caafimaad ee dunida ka jira gaar ahaanna dalalka nugul sida Soomaaliya oo kale waxaan aaminsanahay in iskaashi ballaaran oo laga yeesho xagga caafimaadka wadaagista xogta iyo qaybinta daawooyinka la heli karo ee koronaha ee hadda soo saarista lagu wado waxaan si kama dambaysa u soo afjari karnaa dhibaatadii bulshada caalamka uu u geystay cudurkan tani ayaa ah sida kaliya ee wadajirka ah ee aan ku xaqiijin karno mustaqbalkeena sidaasi darteedna waa in innaga oo ah qaramada bahoobay aan ka dhabaynaa dadaalkeenna wadajirka ah ee aan kaga hortagayno cudurka corona mudanayaal martida sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin guud ahaan dunida dhammaan dhaqaalaha heerarkiisa kala duwan waxaa saameynba aan ku reebay cudurka corona isaga oo aad u ragaadiyey dalalka nugul Soomaaliya sida adduunka qaybihiisa oo kale waxaana soo wajahay dhaqaale xumo ba'an oo xanuun badan shaqo la'aan iyo baahida loo qabo in la maalgeliyo adeegyada aasaasiga ah si dadka looga difaaco saf marka loo dhinto waxaad dhammaantiinna la qiri kartaan intani shaqo ballaaran ku tahay dal colaada ka soo kabanaya sida Soomaaliya oo kale balse dawladdeena waxa ay heegan u tahay inay wajahdo caqabad kasta oo horteenna ah qorshaha dhaqaale ee dawladdeena ee xilliga koronaha ayaa mar labaad dadkeena geysay booska koowaad ee xagga muhiimadda iyada oo canshuur dhaaf lagu sameeyay cunooyinka daruuriga ah hadda oo aan filayno in meeshii ugu xumeed la soo gudbay hadda waxaan si taxaddar leh u bilaabaynaa inaan dib u furno dhaqaalaha si dadkeena ay noloshoodii caadiga ahayd dib ugu soo laabtaan hase yeeshee waxaan fahamsanahay caqabadaha waaweyn ee naga hor muuqda si aan u dhisno Soomaaliya si buuxda uga soo kabatay saameynta koronaha innaga oo xoojinayna muhiimadda ay leedahay ka hortagga koronaha iyada oo loo marayo ficil wadajir ah waxaan rabaa in aan qiro taageerada dhaqaale ee beesha caalamka Soomaaliya siisay ee dalkeena gaarsiisay xilligii go'aan qaadashada iyada oo deyn badan ay cafiyeen deyn bixiyaal badan oo dunida ah innaga oo ku sii dhawaanayna in gabi ahaanba deyntana laga dhaafo iyada oo loo marayo dib u habeynta dhaqaale we remain cognizant that Somalia's economic future and the prosperity of its people are closely interlinked with that of the rest of the world. In this regard, the future we want in Somalia is one which promotes greater partnership for international trade, enhancing foreign direct investment in key productive sector which has the potential to feed the world and the development of human capital to create future opportunities for us all. waxaan ka daragsanahay in mustaqbalka dhaqaalaha Soomaaliya iyo horumarka bulshadiisu ay aad ugu xiran yihiin horumarka mustaqbal ee adduunka intiisa kale mustaqbalka aan Soomaaliya la doonayno waa mid dhiirigelinaya iskaashiga caalamiga ah soo jiidanaya maalgelin caalami ah oo toos ah gaar ahaanna qaybaha wax soo saarka halkaas oo ay yaalaan fursado badan oo dunida lagu quudin karo kana qayb qaadan kara horumarka kheyraadka aadamiga ah si loo abuuro fursado dheeraad ah qaramada midoobeyda aan doonayno waa mid loo dhan yahay oo ah madal iskaashi caalami ah oo aan kaliya ahayn meel fikrada la isku weydaarsado balse ah meel ficil loogu rogo afkaaraha koronaha waxa uu dhibaato ku noqday annaga oo dhan haddii ay tahay in la gaaro hiigsiga horumarka waara waa inaan ka soo kabannaa dhibaatooyinka cudurka si wadajir ah mudanayaal martida sharafta leh marwooyin iyo mudanayaal qalalaasaha adduunka ka dhaca sida koronaha oo kale waxaa laga dhaxlaa fursado iyo caqabado ay tahay in laga gudbo dhammaanteen waxaan aragnay dhibaatada caafimaad iyo tan dhaqaale ee uu keenay safmarka kuwaas oo aan weli dareemayno lana noolnahay ma jiro dal xitaa haddii uu wax kasta haysto ka badgelay cudurka hase yeeshee iyada oo xanuunka iyo dhibaatada aan ka wada simannahay haddana waxaan ka baqayaa in farqiga u dhaxeeya dalalka horumaray kuwa soo koraya iyo kuwa tabarta daran in uu sii ballaaran doono tani waa arrin ay tahay in laga fogaado maadaama ka gudbista caqabadaha taagan sida amni xumada isbeddelka cimilada faqriga iyo sinaan la'aanta kuwaas oo dhammaantood dunida ka sii abuuraya kala fogaansho guud ahaan adduunka waxa ayna tahay in la yeesho iskaashi lana qaado tallaabooyin wadajir ah iyo ficillo horseedi kara in hiigsiga horumarka waara uu noqdo mid miro dhal ah Somalia is working through and with the UN
to create a better future for Somalia and the world. We are taking the lead in delivering development to our people and working with our valuable international partners to ensure we rebuild a domestic, inclusive, democratic, inclusive and economically. Soomaaliya waxa ay ka shaqaynaysaa lana shaqaynaysaa qaramada midoobay sidii mustaqbal wanaagsan loogu abuuri lahaa Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Waxaan kaalin hormuuda ka qaadanaynaa in dadkeena ay gaaraan horumar innaga oo wada shaqayn la yeelanayna bahwadaagta caalamka ee waxgalka ah si aan u dhisno Soomaaliya dimuqraadi ah dhaqaale horumarsan leh inclusive and economically prosperous Somalia. Despite the challenge of COVID-19, we are still working hard to undertake inclusive national elections where the Somali people can determine their future. We are firmly committed to promoting and instilling a strong tradition of democracy and accountable governance which services the Somali people first and foremost. Inkastoo caqabada naga qabsadeen safmarka koronaha, waxaan weli ku howlanahay ka shaqaynta hannaan doorasho oo loo dhan yahay, taas oo dadka Soomaaliyeed ay go'aan ka gaari karaan mustaqbalkooda. Waxaan naga go'an inaan meel marino oo aan xoojino dhaqanka dimuqraadiga ah iyo dawlad lala xisaabtami karo, taas oo u adeegta shacabka Soomaaliyeed. Waxaan sidoo kale si guuli ku dheehan tahay u jabinay dhibaatada argagixisada caalamiga ah iyada oo iskaashanayaan ciidamadeena geesiyaasha ah iyo ciidanka AMISOM iyo bahwadaagta dalalka kale si dunidu ay u noqoto meel nabdoon. Waxaan ku kalsoonahay in dadaalada dawladdeena iyo taageerada joogtada ah ee beesha caalamka Soomaaliya inaysan kaliya ka hortagi doonin halista koronaha ee ay sidoo kale gacan weyn ka geysan doonto iskaashiga caalamiga ah ee dunida looga dhigayo meel wanaagsan, adkaysi badan oo ah meel dadka ay u wada siman yihiin iyada oo mustaqbalka la eegayo. Waxaa muhiim ah in aan gaarno hiigsiga horumarka waara ee qof kasta ee muwaadin ah ee dunida ku nool. Ma yeeli karno inaan qof ka tagno. Tani waxa ay micnaheedu tahay in qaramada midoobay inay dardar gelisaa garab istaagga dalalka iyo bulshooyinka nugul. Qaramada midoobay waxa ay taasi ku samayn kartaa in la caawiyo horumarka dalalka iyo shakhsiyaadka iyada oo loo marayo habraacyada xoojinta hay'adaha dawliga ah, isweydaarka aqoonta iyo maalgelinta kheyraadka aadamiga ah. Kuwani waa maalgelin waqtiga ah oo ka qayb qaadan kara ciribtirka faqriga iyo abuurista fursado hor leh. Gunaanad, qaramada midoobay iyo bahwadaagta qaramada ee xubnaha ka ah waa inay iskaashi cusub ka yeeshaan sidii looga hortagi lahaa cudurka koronaha. Waa in sidoo kale uuna dhex maraa xiriiro iyo macaamil togan oo aan ku abuurno mustaqbal wada jira oo ku dhisan barwaaqo, kaasi oo ku qotoma nooca qaramada midoobay ee aan doonayno in aan helno. Iyada oo tani laga ambaqaadayo, Soomaaliya waxa ay dib u qiraysaa sida ay uga go'an tahay iskaashiga caalamiga ah ee looga hortagayo dhammaanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka jira iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa fursad kasta oo lagu abuuri karo duni nabdoon oo sinaani ka jirto. Mahadsanidin dhammaantiin. In this regard, we in Somalia reaffirm our commitment to multilateralism to overcome all common obstacles and to capitalize on every opportunity to create a better, safer and equal world. I thank you.